عليكم ورحمة الله وبركاته. magacayga waxaa la yiraahdaa Cabdi Shire Jaamac ciyaar jecel waa kabiirka kooxda Qayladaan. awalan waxaan jeclahay halkan inaan ka salaamo dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan iyo xaalad kasta ay ku sugan yihiin. waa barnaamijkii tabliiqa Qayladaan. wax badan baan kelmadda tabliiqa aan isticmaalay. waxaan filayaa hadda tabliiqu inuu laftiisu iska noqday af Soomaali. tabliiqu waa gudbin weey. Qayladaantu marka waxa ay samaysay barnaamij hadii jiraan yiraahdo waa tabliiqa Qayladaan oo macnaha gudbin waxay gudbisaa fakar wadaniyeed oo ummadda Soomaaliyeed ay ku wargeliso ama ay kula dardaaranto in wadaniyadii habacday dib u soo noolaato. marka waxaan iragu magac daraynta badan tabliiqa Qayladaan weey. waxa laga yaabaa inaad leedihiin maanta Cabdi Shire maxaa idin hor keenay idin hortiina uga soo muuqanaya wax kale ma aha. waxay hortiina idin keenay waxa weey inaan barnaamij halkan ka dhacay oo ku saabsanaa kowda luuliyo idin la wadaago baan macnaha hortiina uga soo muuqday. sida la socotaan waayadan waxaan waday tabliiqa Qayladaantan waxaan soo gaarsiiyay geeska Afrika, Kenya ilaa Soomaaliya waan geeyay. adigu bariyahan waxaan ku suganahay Nairobi. habeen dhaweyd waxaa loo dabaaldegayay 52 guuradii ka soo wareegtay maalintii la qaatay xorriyaddii Soomaaliya. haddana ay midoobeen labadii gobol waqooyi iyo koonfur 1960kii 1 July. 1 July waad garan kartaa macnaheedu hadee ninaan u sheegayno macnaha ma jiro. laakiin nuxurka aan macnaha maanta idinku soo hormuuqdo waxa weeye inaan idin sheego barnaamij aan ku qabanay xaafadda Islii ku taal magaalada Nairobi. waxaad la socotaan kooxda Qayladaan in aysan ahayn markii ugu horeysay ay ka qayb qaadato barnaamij caynkaas oo kale ah. sanadku markuu ahaa 2010kii 1 July waxaanu qabanay barnaamij aan isleeyahay wuxuu ahaa kii ugu horeeyay ee London ka dhaca oo ay Soomaalidu isugu timaado 1 July lagu xuso ayaanu ku qabanay. markaanu qabanay barnaamijkaas aan dareennay wuxuu ahaa mid aad iyo aad ummaddu ay uga heleen. inta ka horeysay waxaa lagu dhigi jiray 1 July diskooyada iyo meelaha dhalinyaradu ay u cawayska tagaan. dhalinyarada marka cid bari jirtay ma jirin. 1 July waxay tahay macnaheedu wuxuu yahay taa ayaa waxay keentay marka in aan ku dhiirado inaan ummadda Soomaaliyeed u sheego in 1 July ay noqoto mid ka duwan sidii hore loogu dhigi jiray. taas waxay keentay inaan 1 July konton guuradii aan ku dhigno magaalada London. waxaad inta ka soo qayb gashay ama YouTube-ka ka daawatay ama TV-yada ka daawatay habeenka waxaan ballan qaaday in kooxda Qayladaan ay sanad walba qayb ka qaadan doonto barnaamijka dhigistiisa. waxaan kale oo aan ballan qaaday inta ma ahayn kadib markaan arkay ummadda Soomaaliyeed sida ay ugu jeeleen uguna baahnaayeen barnaamij saas in la hor keeno ayaan waxaan ku dhigi doonaa Hyde Park. Hyde Park waa magaaladan waa beer weyn ee ku taala magaalada London. wariya dhamaantii hadalka markaan soo ururiyo ballanta iyada ahayd waxaan qabaa in aan fuliyay habeen dhaweyd 52 guuradii waxaanu dhignay barnaamijkii isaga ahaa annaga oo la kaashanaynay kooxda dhalinyarada ee waayaha cusub iyaguna magaalada Nairobi degan. waxaanu wadajir u wada dhignay barnaamij 52 guuradii ah. barnaamijkaas oo ka dhacay Islii. barnaamijka waxyaabaha ugu weynaa oo runtii soo jiita waxay ahayd in hortayda ay ka soo muuqdeen aan ku qiyaasay 20,000 oo qof aan ka yarayn. dadka ayaga ah inaba ha yaraato isma buuranayn. qof riixaya ma jirin. qof dareemaya xataa inuu taagan yahay ma jirin. waxaanu bilownay 6dii maqribnimo habeenkii 1diina waanu dhameynay ilaa calankii aanu minaha 12 aanu ka saarnay. marka taa waxay igu dhiirigelisay
in aan ummadda Soomaaliyeed barnaamijka isaga ay la wadaagaan oo ay runtii micnaha arkaan sida wax u dhaceen waxay kaloo igu sii dhiirigelisay inaan micnaha hadda aan ku hamiyo oo aan micnaha isleeyahay sanadka soo xiga allaha awoodda leh hadduu suurto geliyo waan qabaa inuu suurto gelinayo waxaanu isleenahay midkan mid la mid ah waxaad ku dhigtaan caasimadda Soomaaliya fagaarihii weynaa istaadi koon isku dhigan leeyahay waxaan aad iyo aad u jeclaan lahaa inaad micnaha muuqaalada aad arki doontaan aad arki kartaan waxaan hadda jeclahay oo inaan inkaga tago intii aan oran jiray marka aan inta badan microphone ama aan waqti u helo oo ahaa tabliiq qeeladaan muxuu yahay waa afar qolaan inta badan la hadlaa dhinac beesha caalamka aan la hadlaa waxaan idhaahdaa malaayiinta dollar ee magaceena lagu cuno mar dambe yeeli mayno nooma meerinaysaan dadka ay iga dambeeyo oo arkaysaan oo dhalinyarada ah ee kumaankumka ah waxa ay ku sugan yihiin laaji ku yihiin micnaha Nairobi iyo Islii oo ay dhibaatooyin badan ay ku qabaan oo runtii habeenkii markii barnaamijku dhamaaday dad badan oo xataa iyaga kamid ah qaarkood aysan u suurtagelin gurigooda inay micnaha ku hoydaan ay noqotay in habeenka askartu ay la haraan marka dadka iyaga waxay doonayaan dalkooda inay ku noqdaan laakiin waxa nasiib darraa in hay'adaha caalamiga ah ee loogu talagalay inay micnaha caawinaan aysan ka helin caawimaad loogu talagalay balse sidaan la socono micnaha lacagihii faraha badnaa meel ay aadan garan mayno waxaan aqrinaya report la leeyahay Soomaaliya waxa ku baxday ilaa 91 ilaa hadda 55 bilyan daday ku baxday ma waagna waa mayway marka waxaan leenahay arinta ayada beesha caalamka ah barnaamijyada ay wadaan ka yeelmayna mar dambaanu leenahay waxa kale oo ayadana aan jeclahay in la hadlo odayaasha dhaqanka oo la socotaan hadda waxa nagu soo foolle xilligii la lahaa kala guurka anigu aan iraahdo isku keenka way kala guur ma odayaasha dhaqanka waxa laga filayaa inay soo xulaan dadkii ku haboonaa in baarlamaanka ay maamulaan hadii markaan lahaa digaaga wadawa waa diri karaa dunida maanta dabarka iska jaro la diray qoomka diinta ku qaraabta dabadeed hal ay tiraano xaq dardaaraya adinka waxaan idin leeyahay ma fadhiyi karaan odayaashu waxa aad rabtaan haddaysan samaynin ma fadhiyi karaan odayaashu xildhibaanka aad rabtaan haddaysan soo dooran ma fadhiyi karaan haddaysan soo dooran madaxweynaha aad rabtaan ma fadhiyi karaan dowladda kumeel gaarka iyana waxaan leeyahay dardaarankan kula dardaarmahayaa taariikhdu waa la qorayaa waxaan ka codsanaynaa in ummadda Soomaaliyeed danteeda aad ku fakirtaan aynan ku fakirin micnaha in xukunka aad ku sii dhigtaan ninkii dan ay ka hayso inuu ku soo laabto waa oo si sharciga ku hela waa la soo dhaweynayaa laakiin taangiga amisom ay leeyihiin ku jirista lagu jiraaho mas'uul laguma noqon karo taangiyada inaad ka soo baxdaan oo ummadda aad hor fariistaan wax ku noqotaan baanu jecelnahay haddii waqtigu idin saamaxo iyana inaad micnaha saa yeeshaan u jecelnahay shacabka Soomaaliyeed iyana waxaan leeyahay intii aan oran jiray oo waxaan leeyahay xaafadaha ka soo wada baxo sheegta xubintiina ilaa aad xaqina yeeshaan ya lacagataan waxa la isku haystaa waxa way waa idinka way waad aragteen wadamada micnaha carabta oo walaalaha waxa ka dhacay waad aragteen Tahriir Square waxa ka dhacay haddii idinku aadiidaan oo aad tirahdaan yeeli mayno ma fadaano hashqiiri yeeli ma waa luqadaha ama lahjadaha macaan oo qaansan roobaadkan iraado ummadayda Soomaaliyeed ay ku hadlaan ciid micnaha qasab nagu haysan kartaa ma jiraan wabillahi tawfiiq inta ayaan maanta ku kala tagaynaa ilaa aan barnaamij kala mid ah ku kulmi doono waxaan kaga tagayaa tabliiqa qeeladaan